hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa goor dhaweyd soo saartay fariin digniin ah oo aan horey loo arag taas oo ku saabsan qorshe la rabo in lagu dilo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwada ugu sareeya. hay-adda oo aan sanadkan 2022 wax war ah ka soo bixin ayaa saakay aroortii soo qortay fariin ay ku sheegayso in madaxda dowladda ay ku wargeliyeen halis al-shabaab ay maleegayso oo ay ku doonayaan inay ku beegsadaan madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha. waxaan madaxda qaranka siinay warbixin ku saabsan khatar ay maleegayaan maafiyada al-shabaab oo ay rabaan inay ku beegsadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaranka. maxamed maahir oo dhagar qabe sare oo al-shabaab ka tirsan ayaa wada fulinta qorshahan dabagal ayaana ku haynaa cid kasta oo ku lug leh hawshan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ayaa arrintan u fasirtay qorshe cusub oo la doonayo in lagu dilo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble waxaana sii kordhaya khilaafka dhamaystirka doorashada dalka. waana markii ugu horeysay oo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ay shaaciso arrin sidan oo kale ah kana sii digto beegsiga madaxda dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ugu sareeya oo ahayd hawshii loo xil saaray inay ka hortagaan. Cabdi Naasir Socdaal, Bilan Radio.